بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر هذا برامج كارما هوينك وتضوات كيبو مرأة كداوتان تلفزيون كايستيان حرنتي سرحوا كل مقالة تاني نيروبي برامج كوحا يدين صوت ديار رسال كان يدين كلا سعود سيساني ونسر محمود الرعسة وحين كسو قادرنا أرما هوينك waxwalbo liid kuwa horumarka dumarka Soomaaliyeed iyo waliba horumarka ay bulshada ka sameeyeen inuu barnaamijka ku falanqeynaa hadba waxaynu ku soo martiqaadnaa qofkeen isdhigi karna horumar ayuu bulshada ka sameeyay inuu barnaamijka ay ku soo martiqaadnaa barnaamijka alaab waxa idin soo diyaarisay halkan idin kala socodsiisa ani waa Nasra Maxamuud Dhicisa galabtana waxa barnaamijka marti igu ah gabarda ayaro ismahaan Xasan Cabdi ah gabadha soo qortay book ka hadlaya dhiirigelinta misna dhanka iyo nolosha horumarka bulshada ah inta ka hadlaya ayay qortay ayada marka hore ku soo dhaweynayna sida caadiga barnaamijka soo dhaw marka hore ismaan mahadsantahay sida sharafta ay soo dhaweyseen magacaydu waa Ismahaan Xasan Cabdi maanta buugana aan qoray ayaan gacanteeda ku hayaa inaan wax faahfaahin dheerniga si ayaa rabaa waxaad aad u mahadsantahay Ismahaan marka hore waxbarashadaada heer intee ayaad ka gaartay هذا waxbarashada maxaan bogay akhriska high school maxaan bogay last year so hadda maxaan ku jiraa jaamacad halkaas aad imaraysaa waxaad aad u mahadsantahay Ismahaan marka hore dhanka su'aalaha ayaynu ka weydiin doonaa buug ay qortay Ismahaan buugeeda waxyaabuhu ku saabsan yahay dib ayaynu iskugu soo noqon doonaa marka hore maxaa kugu dhalay inaad qortaa buugan ka turjumaya arimaha bulshada okay arimaha waxa mostly waxa igu dhiirigeliyay inaan qoro buugan waxaan arkay like dad badan oo noloshoodii like daciif ka noqdeen oo waxba qabsan karin ardayda hadii dhinaca ardayda la fiiriyo ilmaha like iskuulka ay ka baxayaan maxay isdhahayaan like waxaan iskuulkan maanta maxay tiraya so marka qof walba adduunka jooga muxuu maleynaa iskuul hadii la aqriso mis dugsi mis madrasadaad bogtid ina horumar waxba gaarinin halkaas ay maciishadaada waxa ku dhamaanaysa soo marka buuga waxaan u qoray inaan dadka aan faa'iido siiyo aan horumarka ee dunida ay ka subsan lahayn aan tuso inta soo kugu dhalisay gorme ayaad bilowday qorista buugan meeqay ayay ku qaadatay muddo ilaa intee ay ku qaadatay okay buuga maxaan bilaabay sanadka hore soo dhaafnay bisha 12aad sax soo marka maxay u qaadatay 4 bilood qoriska leexa haya soo marka aftadaad marka qoristi markaan dhameeyay then 1 month markii laga joogo waa nastay ma publish gareenin soo aftadaad this year ali publish gareen waxaga garabku weyn xagee baad ka helaysaa xagee baad ka heshay markaad qoraysay buuga okay qofka igu horeeyay oo isaacideeyay waa walaalkay oo cousin-kayda ah oo la dhahay Cabdiraxiin oo garab igu siiyay xagga publishing oo garab igu siiyay iyo walaashayda Salma oo iyadana igu garab qabatay dhankaas ayaad ka heshay dhankay garabka qof walba markuu wax bulshada u soo bandhigayo misna uu ka hadlayo arimaha bulshada gaar ahaan markuu buug qorayo dhibaatooyin kala duwan ayuu kala kulmaa markuu wax qorayo dhibaatooyinka leeg ayaad kala kulantay intaad ku guda jirtay qorista buuga okay intaan buuga qorayay mostly dadka way weydiiyeen maxaa kugu kalifay inaad buuga qorta marka maxaan dhahay like inaan dadka faa'iido aan u faa'iideeyo ay noloshooda ay dhowtay ay horumar ay ka gaaraan marka dadka badi maxay ugu dhaheen like waxaan ma ka gaaraysid iska dhaaf dadna uma faa'iido uma noqonaysa marka dadka like I was like waxa ahay like disappointed amal dadka marka wax walba maxay dhaayeen waxa ma soo bin kartid qof walba muxuu ku dhigay like waxana daa soo bisid faa'iido nooc ah ka helaysa marka muddo maxay aday like 1 month ka saad aan ku sheegay waan fikiray dadka maxaan marka waa dadka hadalkooda dhageysanaysa waxaan waa waxa fikrad la imaaday oo ina bulshada wax u qabatid so mostly maxaan dadka aan ka dareemay inay garab ku siinaynin ayna horumar ay kula rabin marka uma san joojinin marka uma istaagin maxaan dadka waa dadka hadalkooda aan dhageysanay because waxa aan doortaba inaan dadka wax u qabto so dadka day ku siinaynin opinions ay ku dhaheen ay ku dhaheen like way fiican tahay ay gacan ay garab kula qabaneen so aad dantaada ka raacanaysa because it's waxa ku fiican waay so dadka hadalkooda marka ma dhageysanin sidaas ayaad ku gaartay guusha inta kadib wuxuu ka hadlayaa buugan arimo kala duwan bal hadii aad noo kala qaato
okay buugga maxaa waaye dhiirigelinta soo magaciisa maxaa waaye life is a journey not a race marka nolosha orod laguma gaara waa maxaa la dhihi jiray si tartiib ayaa wax looga qabsan karaa marka buugga maxuu ka hadlayaa like qofka markuu rabaa like muxuu qabaa somaa dreams riyooyinka inuu ka gaara qof walba adduunka hadda jooga riyo uu leeyahay bilaadan walbana riyadiis inay u rumowday rabtaa soo midaas waa kow midda labaad muxuu ka hadlayaa timeka dadka waqtigooda like mostly ma isticmaalaan waqtigooda like faa'iidada waqtigana ma garanayaan midaas waa laba marka midda saddexaadna maxaa waaye qofka ma garanayo adduunka wixii loo keenay like purpose camal soo ruux walba like adduunku adaad iska joogtid waxa adduunka inaa horumar ay ka gaartid waaye marka inaa wax walba ka horgaartid waaye marka muxuu ka hadlayaa like purpose waxa nafsadaada u jeceshahay iyo waxa bilaadanka u jeceshahay faa'iidada adduunka joogtid inaa ogaatid haya iyo successka qofka horumarka markuu gaarayo guusha markuu qofka gaarayo iyo maxaa waaye muxuu kale ka hadlayaa like qofka waxa like nafsadiisa u fiican oo maxaa la dhihi jiray qofka bilaadan oo hadalka like qof oo like ina negativity u fikiraya hadduu dhageysta inaad dhageysanin oo horumar aad gaartid noloshaada because maxaa ku sugaysaa nolol adduunka saan uma taagnaanaysid sax marka qof walba horumar ayuu rabaa adduunka inuu jooga because hadhow ilmaha maxaa la dhihi jiray ilmaha dhalaysaa waa lagu guursanaya gabar hadaa tahay nin hadduu yuu guursanaya ilmuhu dhalaya hadhow marka ilmahaas yaa beeli asaga sooma laga interbeela marka maxaa laga rabaa adduunka inaad joogtid inaad faa'iidaystid ragga iyo dumarkaba waqtiga ayaad ka dhawaajisay sida wada ognahayna waqtiga waa waxa ugu qaalisan qofka bani aadamka uu leeyahay marka sidee baa waqtiga looga faa'iideysan karaa okay mostly waqtiga maxaad uga faa'iideysan kartaa maanta camal haddaad dhahdid wax baan qabsan rabaa oona wixiina aa qabsanin aa iska dhaaftay marka maxaa dhahday maanta waxaan ma qaban karin marka waqtiga ayada aa dhahday inaan qabsadaa rabaa ayaa muhiimsan inaa qabsatid because haddii la gaaro beridaas waxba ma qabsanaysid waqtigina uu kaa habsaamay dad maxaa jiraan oo waqtigooda dad kale ku dhimanayaan oon ogeyn faa'iidada waqtiga maanta camal meel baa iska aaday because saa usoo kacda sheeka iska gashay qof wax iska dad baa xamatay danka ma dhigin waqtigaada inaad ka fikirtid because maalinka markaad soo kacdid adduunka qof oo like perfect ma jiro somaha marka waqtiga markaas maalinta aad soo kacday inaa hal eray mis hal faa'iido ah heshid waaye ana mas qof u faa'iiday mis adaa lagu faa'iideeyo marka waqtiga waxa isleedahay sidaas ayuu ku dhacaa riyooyinka ayaad ka hadashaad ka dhawaajisay qofka sidee uu ku gaari karaa riyadiisa si uu u gaaro halkii uu doonayo okay riyada maxay dadaalka adiga nafsadaada ay ku xiran tahay waqti saa u dadaashid wax walba horumar oo gaaraysa marka qof walba riyo leeyahay riyadina inay ku rumowdaa rabtaa marka wax walba inaa horumar ka gaartid waa rabtaa soo inaad asiixanin oo waxaad qabsatid صح ku xiran tahay wahagaag noloshana waad ka dhawaajisay wayna soo noqon doonaa marka hore qaab noocma ayaa qofka loogu dhiirigelin karaa inuu bulshada horumar ka sameeyo okay qof walba fikrad gooni ayuu qabaa adduunkan marka qof walba like hadaad dhahdid adiga ahaan maanta waxa baan furaa business waxaan furanaa dhihi marka wixii maxaa weeyis qof like kula garab qabta aad u sheegatid dhibkaada iyo waxa meesha dhibka ka haysto marka wixii adiga iska qarsatay maxaa may iga dhaaf ma suubin kartid marka adduunka qof walba hadduu maanta dhib uu haysto fikrad fiican uu qofka kale ula wadaaga maxaa laga yaabaa qofkaas inuu saacideeyo oo adduunka uu dadka maxaa la dhihi jiray bulshada uu la qaybsado uu u sheego oo qofkaas gadaal dambe laga saacideeyo oo ruux walba meel hadda wax oo heer sare taagan inuu saacideeyo صح soo qof walba waxaan dhihi lahaa guushaada inaa horumar ka gaartid waaye oo wax walba waqtigaada aad fiirsatid oo adiga kugu xiran tahay leedahay waa hagaag haddii aynu u soo noqono dhanka iyo wali horumarka bulshada ayaynu ku dhex jirnay dib intaan taas waan u soo noqon doonaa marka hore markaad buuga adiga dhameysay oo guushiisa gaartay oo qortay oo waqti ku soo bixisay oo juhdi ku soo bixisay adigu ahaan dareenkaaga sidoo ahaa والله أنا إيهان like فرحة أي إهد because book مدقرة أي سو بحيي
marka aniga like waan faraxsanay iyo maxaan faraxa kale igu sii jiray maxay ahayd iyo fikradda kale maxaan dhahay buugana maanta gacanta ku haysid beri muxuu dad buu wax u tarayaa dad buu like lifekooda kor u qaadaa noloshooda soo dad buu noloshooda bedeli doonaa soo midda labaad aan ku faraxsanayn taas ahayd waa hagaag bulshada weli ma usoo bandhigtay buuga ها maxaan qabtay xalfad marka maxay ahayd bisha August taariikh 21 Sabtidii aan qabtay marka ruux walba like xalfada daa qabto ruux walba ma hayso marka qof walba like buug waan aqriyay half of maxaan ka aqriyay like story oo like dhiirigelin camal ah qofka ay soo jeedanaysa buug wuxuu ka hadlayaa sax soo marka xalfadii markay dhamaatay alxamdulillah qof walba uu gatay هذا قفل بمريه كريم because half of them are getting like dadka badi way gateen صح أنا قفل بنا محوس ده like مركو reply يسوي لنا محوي ده فإذا بدن أيان كلا وذجنا حديثها مجعشها إنك بواك كلا كدو بنا تصوب عندك تسيد برشة وحي كقرصونة بناكو كنت ها إن شاء الله مركي قرت بيش محل دي سنة كعصب waan ku rajeynaa inaan buug kala qorto marka halkaas ay uga soo noqono waxaa jira dumar badan oo wax bartay guriyaha ku jiro maadaama adigana gabar yar aad tahay oo wax baratay haddana buug qortay buug gudihiisa faa'iidooyin ku jira aad sheegtay in si aad rayada ku gaari lahayd waqtigaas aad u ilaalin lahayd nolosha in san orod lagu gaari karin guusha qaabka ay tahay intaba aad ka hadashay marka dumar waxaa jira oo wax bartay oo guriyaha joogo oo taa ayada ah maxaad ka dhigay oon waxba qabanin oo bulshada aan ka muuqanin okay horta mostly dumarka maxaa dadka maxay dhahaan badi like dumar hadduu school iyo wax u dhameeya aqriska iyo wax dhan hadduu dhameeya maxay ku taraysaa nin baa gursanaysaa lagu leeyahay because anaga hadda like niyadayna qof walba sidaas ayuu naga dhadhaxsiya but anaga hadda like dadka hadda soo kacaya like dadka hadda bulshadu soo kacayaan ma dhihi kari maanta like man dadka inay guri fadhiisanayaan ilama taha because waxa adduunka ka jira bay arkeen soo hadda dumarka guriga jooga maxaan dhihi lahaa school way dhameeyeen aqris way dhameeyeen guriga iska joogaan because hooyay waalida ku soo koriyay ayaga maxay ka raaw intaas ku soo ekisiyeen ma horumaray ku soo gaarsiiyeen aqriska dhan ay ka soo bixeen waad dhameysay marka maxay ka rabaan in aad u dadaashid oo wax u qabatid waqtiga ayaga wax loo qaban lahaa ay joogan marka maxay ka rabaan horumar fiican inaad gaartid gabar fiican inaad noqotid marka gabar walba maxaa leeyahay oo hadda guri joogto oo waxbana haysanin inay magaalada u kacdo ay magaalada waxay heli karto ay raadsato adduunka wax u qabato kaalin intee leeg ay ku leeyihiin dhanka iyo horumarka walaahi dumarkii iyo ragga hadii la fiiriya dumarka ayaa ka dhinaca la fiiriya bulshada dumarka ayaa ka badan ayaad leedahay ayagana hadda dumarkana faa'iido weyn way u hayaan adduunkan marka mostly dadka ma arkayaan waxaas because anaga maxay dhahayaan like gabar hadii iskuulkii wixii bogtay inay guriga joogtay oo habboon base niyada ay dadku u geliyeen marka hadda maxaan leeyahay gabar walba guriga joogta ha u kacdo waxbarashada inta badan dumarka iyo ragga ama wiilasha iyo gabdhaha baan dhahaa waalidiinta waxay inta badan u kala soocaan inay gabadha gurigeeda aysan maxaan ku raadayay aysan waxbarasho sii wadi karin jaamacad hadday imaado wiilkii gabadha ay is qabtaan in wiilkii loo daayo la yiraahdo jaamacadda asaada waxaa barto oo gabadhii la dhaafo laho de horaan baadi jika ku dambeyn lahayd waxbarashada faa'iido ma lahayn taa ayada ah niyad jab soo ugu imaanaysa dhanka waalidiinta dumarka ها نجيب وين أي أو ما هذا because والدين ده حقودي ويسوق كريان أنت سوسو إكسيان ما أنت وقت اللي جورسن لها يجرتي مركا أقرص كداء لما يسي قفل بمكتب بالآدم ساس كدكتبه أيا لغول رقمي مركا ما حسيت أفسمالي كل هذا لحظة المشي سدكتها يا لوقلة صح مركا هذا ما حن إيه لها كبر والب أنا هذا أنا هاني haddii maanta uu nin isoo guursado mas-uul dhaha like inaan ku guursado aqriskayga mistaajin lahayd waan sii wadan lahayd because nin hadda la iskuma huba because hadda dadka mostly nimanka dadka hadda way ku ciyaaraan ma dhihi kara like ana dadka mostly saan u arkay nimanka danka ma laha gabadha hadii guursadaan waqtiga markii la gaaro soo gabar walba inay aqriskeeda ku dadaasho
ay waxay marka haddii guur imaadana gabadhii wiilka ay isguursadaan ay gabadha wax aqrisanayso uu wiilka u dhahaa wax ma aqrisan kartid guriga yeelatay because labada ruux ay ka dhaxaysaa inay hadlaan ay fadhiistaan because qofka ninka maxaa laga yaabaa inuu dhaho wax ma aqrisan kartid ay gabadhana aqriskeeda ay rabta marka qof walba asagaa leh choice qof walba asaa wixiisa hagaajisan karaa marka gabadhii wiilka way tashan karaan aqriskeedana way wadan kartaa dhanka iyo guusha buugaaga uu ka mid yahay ee qodobada aad ka aqrisay ee qofka bani aadanka ah ilaa intee ayuu guushaas uu ku gaari karaa okay qofka bil aadanka guul uu gaari karaa soo asaga wax uu hagaajista marka buugayga ahaan haddaan u fiiriyo walaa qofka aqriyo waxyaalo badan ayuu ka dareemayaa like noloshiisi oo hadduu fiiriyo waqtiga like say u isticmaalayaan dadka mostly waqtiga way iska dhumiyaan timeka way iska dhameeyaan marka iyo ma garanayaan nolosha waxay u joogaan wax maala yacni ay waqtigooda ku dhameynayaan waxyaalo fara badan ayay ka faa'iidayaan وحاجة gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhanka iyo dhalinyarada ayaad marka hore kuugu dhaliyay buugga inaad ka qorto dhalinyarada aan waxbarashada isdhahay inta badan dhahaan waxbarashada maxay taraysaa iyo waxyaabo la mid ah dhanka iyo maandooriyaha ma ku soo dartay buugga ma uga hadashay ha hay oo like qofka dhahaa maanta wax ma baran kari because wax hadaad baratid adu ma dhanka iyo waxaan ka hadlayaa muqaadaraadka qofka intuu balwad cuno dhalinyarada balwad cunaysa drugs oh may ugu ma hadlay ha like drugs kama hadlin waa hagaag aad ma san tahay Ismahaan Xasan Cabdi gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay baaqaaga ugu dambeeyad u diray dhanka haweenka maadaama barnaamijku yahay barnaamijka arrimaha haweenka adiguna aad tahay gabar da'yar ah oo qortay buug baaq ugu aad u diray lahayd dhanka haweenka hay marka gabar walba maxaan dhihi lahay nolosheeda horumar ka gaarta wax baa sugaya hore inay nolosheeda horumar ka gaarta future ay leedahay waalidiin ayaa soo koriyeen ilmay dhala doontaa soo waxaan dhihi lahay inay waxeeda aqrisato ee nolosheeda iyo bulshada ay wax u qabato intay wax u tari karta iyo fikrad walba gabar walba fikrad leh hadaba oo adduunka joogta inay u gaarsiiso bulshada horumar fiican ayaan u diraa gabdhaha waxaa jira laga yaabaa inay jiraan jecel inay qoraan buugaagta kuwaasna dhiirigelin inta laga yaadsiin leh okay qof walba hadda oo raba gabar walba oo hadda niideeda ku jirta inay buug qorta buuga markaad qoraysid iskama qoraysid in maanta meel aska soo kacdo ma dhaysid buuga qorraba because waxyaalaha ka hadli lahayd inaad u fikirtid waaye maxuu like inaad fiirisid waaye like buuga hadaad qortid yay dhinaca like mostly an audience-ka like audience-ka famisa marka like dhinacaas like you u jeedin karaa waxa qorta yay faa'iido u noqon kartaa inaad ka fikirtid waaye marka wax walba inaad plan garaysid waaye before waxyaabaad uga hadli lahayd bulshada qaabka dhanka oo ay kala liidato inaad soo qabatid ha inaad fiirisid waaye bulshada hadda qof walba like hadda mostly Soomaalida hadda joogaan gabdha ma sha Allah jira buug qoran wiilalna way jiraan ayagana Soomaali buug qoran oo wax walba ayaga different oo maxay subiyaan like oo waxyaalaha dunida dadka ay ka liitaan ay arkeen way qoran ayaga way jiraan marka hadaad gabar ay jirto maanta miswiil uu jira wax oo inuu buug ku qoro oo adduunka ku darsado oo bil aadanka u faa'iideeyo qof walba waqtiga inuu fiiriyo oo buugas iyo waxyaalihiisa inuu waxyaalaha uu si plan gareysto oo qori lahay inuu si fakira waxa walba ka hadla doona buuga inuu ka fikira markaas kadib ma ayaa wax bilaabi kartaa markaad wax fikradda dhan aad isku keensatid وهاجاج أذو ما سنتها اسمهان حسن عبدي وبرامج كمرتي وهاد قلبته وبرامج كارما هوينك وحين وجهد ليني وجهد لي سيدنكا ينولشة يولي بدير جلينتا سيابوين فرق بدن ويبرشان كقرصون تنقوده سو كل حيالي سيدا وقتها ريوين كقف كيولي بسيدو جوشو كجار لها أيانو أنت بيقف على قيني برامج كارما هوينك برامج كوحيدين صدي أرسل كايدين كل سعودين سنة ونصر محمود الرئيسة كاميرada waxay iga saacideysay keed dhanka farsamada Maxamed Ciise ayaa gacanta igu hayay ayagoo isku door waxa la aad iyo aad u maasantihiin ismahaan waxaan ku leeyahay mahadsanid sida quruxda badan aad barnaamijkaad inoola qabatay iyo studio-aad inoogu soo booqatay soo dhaw in badan wandhawiha waa mahadsantiin sida sharafta la isoo dhibisay waa hagaag intaas inoo eegay daawadayaal barnaamijka arrimaha haweenka
barnaamijkan barnaamij la mid oo toddobaadka dambe intaana ku gaari doono hadduu eebi waxaynu idinkaaga tegaynaa sida iyo ammaano alla